بسم الله الرحمن الرحيم كلنا بوندا وديال كسو دواده janalkeena Shariif Show hadii ay markii ugu horeysay fadlan oo aad aragto nagu soo bir kamid noqo saaxiibadana soo joogtada wala socda wararka caalamka iyo Soomaaliya qodobada ugu weyn aad ku daawan doontaan wararkeenana waxa qayb ka noqonaya Mareykanka ayaa markii ugu horeysay si cod ah looga maqlay in uu markaas u socdo gaaska dareeraha ee laga helo xeebaha Soomaaliya hadaba maxay tahay talaabada waqtan Mareykanku uu qorsheenayo sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Africom ee halkan u jooga Mareykanka ayaana sirtaas bixiyay hadaba maxay ahayd qorshaha ugu adag Trump Mareykanku waqtigan si loolan ugu soo foogan yahay Soomaaliya dhinaca kale taliyaha ciidanka bariga Liibiya Khalifa Haftar nin la yiraahdo isna booqashiisa ugu horeeyay ku tagay dalka Pakistan iyo waliba talaabada culus ee waqtigan Pakistan iyo Liibiya oo qorshe culus eegan halkaas gaaray taasi oo waqtigan lagu wado doorka ugu muhiimsan ee Pakistan in loolan siyaasadeed yana halkaas ka wado maxay tahay Pakistan waxa halkaas lagu soo dhaweeyay qorshaha ugu adag qaab noocay ay u rabtaa JF diyaaradaha la yiraahdo iyo waliba soo kale droneska doorka ugu muhiim ee ka qaadan karo tababarada ciidanka barnaamijkan ku daawan doontaan sidoo kale ilo wareedyo Iran ayaa inuu sheegay ama u sheegay wakaalada wararka Reuters in ay markaasi Iran ay ogolaan karto nuclear-ka in la kubciyo walibana loo dhoofiyo dibadda si markaasi sarana loo qaado Turkiga gaar ahaan qaybo kamid ah wargeysa dalkaasi oo lagu baahiyay qoraal dheer ayaana sidoo loo qaaday hadaba Turkiga iyo waliba sidoo kale Iran qorshe nooc ay ka watan difaaca iyo waliba dhoofinta hubka sidaas Trump ula macaamili doonaan Turkiga qorshe nooc ayuu ka leeyahay Trump ma noqon doonta halkii uu sida adag isaga difaaci lahaa Trump ayaa markii ugu horeeyay ku dhawaaqay inuu Mareykanku heshiis uu la gali doono ganacsi dalka Hindiya kadib xilli markaasi wada luqadka telefoonka ay ku wada yeesheen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya talaabo nooc ayaa loo qaadi doona maxay tahay waqtigan dhibaatooyinka culus ee ugu imaan doono dadaalada ugu dambeeyay saacadihii ugu dambeeyna wargeys lagu magacaabo Davos ayaa tilmaan adag ka bixiyay doorka ugu muhiimsan ee rabitaanka Mareykanka qorshaha ugu ballaaran oo ka rabo duulanka awoodeed uu isagu ku damacsan yahay sidii dalka mar kale awood military ugu adeegsan lahaa guud ahaan quwadda dunida oo u muuqata waqtigan in qorshaal adag laga qaadan doono qodobadaas waliba wuxuu kale nagu soo kordha caalamka iyo Soomaaliya falanqeyntoda ay ku daawan doontaan marka soo dhawaada janalkan Shariif Show kamid noqosay la gareey si meel dheer aan u gaarno aragtidana qaybta hoose commentiga ayaad markaasi nagu wadaagi kartaa aan ku bilaabay Mareykanka ayaa markii ugu horeysay si cad markaas looga maqlay inuu ku socdo gaaska dareeraha ee laga helo xeebaha Soomaaliya kadib markii television u dhow maamulka Trump Fox News loo yaqaano uu ka soo xigtay John Perry nin la yiraahdo oo sarkaal sare ama sarkaalka labaad ee ugu sareeya taliska ee howlgalka militariga Mareykanka ee Soomaaliya iyadoo markaasi u horseedi karaan fursado ganacsi oo dhawaan markaasi ay qorsheynayaan in maamulka Trump iyo waliba sidoo kale dalkiisuba si xoogan ugu fogaan yihiin sida awoodda ay dalalka ay kaga quwad badan yihiin talaabo waqtigan u qaadan lahaayeen Trump ayaa la qorsheenayaa waqtigan inuu dalalka u arko inuu isaga si awood leh ama wax badan ugu bedeli karo qorshihiisa ugu qaadi karo taasi oo xilligan si adag ay ugu tilmaameen ayayna ku sheegeen qorshe kasta oo cad oo waliba talaabo ugu geysan karaan in ay loolan adag ay u gali karaan dhinaca kale waxaana sargaalkan oo qoraalkan ka soo xignay ku sheegay Soomaaliya waxa ay leedahay yuri kheyraad dabiici ah walibana laba sababood oo la xiriira xaalada amni oo aanan ahayn Soomaaliya kama aysan faa'iideysan karto yuri Soomaalidu waxay markaasi ogaanayaan yuri in ay haystaan macdan muhiim u ah xeebaha Muqdisho oo ay ku jiraan gaas dabiici ah iyo waliba dareere ah marka isla talaabadan ayaan imaanaysa xilli xaaladda geeska gobolka u muuqato in dhibaatooyin waaweyn ee xoogan ay ka jiraan iyadoo geeska Afrika oo dhaqaalaha gaarka ee markaasi laga leeyahay hadii ay markaasi ay ku guuleysanayso ayuu yiri in aan markaasi soo jeedino maalgelin ganacsi oo gaar ah oo si markaasi ka jirta dalalka kale ee Afrika taasi waa mid ay ku noqon karto midnimada amniga iyo guud ahaan qoraalkan oo markaasi lagu daabacay barta Fox News ayaan markaasi si adag diirada loogu saaray waana qorshaha ugu muhiimsan dalka Trump ama markaasi Mareykanku loolan xoogan ugu jiro sidii uu isaga wax badan ugu la qaybsan lahaa waxa dhinaca kale taliyaha ciidanka bariga Liibiya Khalifa Haftar nin la yiraahdo ayaa booqashiis ugu horeeyay markaas isna ku tagay ama ugu bilaabatay dalka Pakistan halkaas oo ay wada hadal ku yeesheen taliyaha guud ee ciidamada Pakistan File Marshal nin la yiraahdo kulankan oo markaas isna ka dhacay saldhigga cirka ee Rawalpindi labada dhinac ayaan markaas ka wada hadlay iskaashi dhinacyo badan leh taasi oo gaarka ama door muhiim ah laga geysanayo
iskaashiga dhinacyada amniga oo door muhiim ka geysanay iyadoo Pakistan iyo waliba sidoo kale xaaladda gobolka geeskaasina u muuqatay mid dagaal oo xoogan idan ay ku soo foogantay waxaana sidoo kale Pakistan ay u soo dhaweynaysaa Harva sidoo kale xogaha markaas laga helay ayaa muujinaya Harva oo Pakistan markaas ka iibin doono hubkii ugu qiimaha sareeyay ama gaarayay $4 bilyan oo dollarka Mareykanka in uu markaas helo 16 diyaaradood dagaal oo nooca FJ loo yaqaan 17 iyadoo sidoo kale diyaaradaha droniska ee tababarada ugu muhiimsan ay ku qaataan taasi oo waqtigan tababarka iyo waliba tayeynta duulimaadyada cirka ee badda oo bariga Liibiya la qorsheynayo in si xoogan loo adkeeyo kadib xilli dhawaan la arkay awoodda military in uu adeegsan karayaan dalalka reer galbeedka booqashadan waxayna ku soo beegmaysaa isbedelka muuqdo oo markaas ku iman karo mowqifka Haraaf waa markaas Hafar oo Suudaan kadib markii cadaadis xoogan uga yimaaday Masar oo talaabo adag inay u qaadiso waxaan markaas la yiri koronka ku farta la yiraahdo oo horeen markaas u marin hub loogu gaarsiiyay ciidamada taageerada degdeg ah RSF helitaanka iyo waliba dhibaatooyinka ugu culus ee kaga iman karaan iyadoo waliba hakad lagu muujinayo tahriibayaasha ee ka soo soconaya Suudaan ayaa haatan la tilmaamaya qorsheeda ugu adag in halkaas gaarto heshiiskan u dhaxeeya Pakistan iyo Liibiya waxa markaas muddo dheer la diyaarinayay oo ah talaabo adag oo waliba loo qaadi doono haddaba se maxay yihiin muhiimadda ugu adag ee heshiiskan ee markaas ku soo bandhigi doonaan arintan ayaa imaanaysa in labada dhinac buu iska indhatiri karaan ama Jane Calvin la yiraahdo oo si adag isna markaas uga hadlay xaaladda Liibiya ayaana u ogolaanay in markaas awood military oo sareeyo oo dawladda caalamka ay aqoonsan tahay Liibiya oo ay tahay markaas ka turjumayda isbedelka caalamiga ee ku muujin karaan cid kasta oo doonayda dhaqaalaha la xiriira difaaca waliba taageerada diblomaasiyadeed ayna ka heli karto sharciyada siyaasadeed ee militariga ayaa la yiri waana talaabada ugu adag Pakistan waxay sidoo kale iyana xoojinaysaa ama ballaarinaysaa suuqgeynta hubka gaar ahaan diyaaradaha dagaalka FJ-17 jiilka afraad oo ay si wada jir ah markaas u soo saaraan Pakistan iyo waliba Shiinaha taasi oo sumcad weyn u ayaa la yiri dagaalka ugu dambeeyay Pakistan iyo waliba Hindiya talaabada tani ma noqon kartaa Pakistan in qorsheeda ugu adag ay tahay in Hindiya loolan adag ay la gali karto talaabo kastaba ha ahaatee si kastaba ay guul ugu gaari karto waxa markana madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isna markaas lagu wadaa in talaabooyin hor leh uu qaadi doono awoodda dunida oo u muuqata waqtigan in loolankiisa kaga aadan qorshe adag uu ka gaar doono ila wareedyo Iran ah ayaana u sheegay wakaalada wararka Reuters in Iran ay markaas ogolaan karto uraniska in la kobciyo walibana loo dhoofiyo dibadda halka sarkaal sare oo ka tirsan Turkiga oo markaas u sheegay wargeyska Haaretz oo markaas uraniska markaas lagu wareejin karo Turkiga sidoo kale Trump aan markaas Turkiga wuxuu doonayaa in uu keeno labada dhinac Mareykanka iyo waliba Iran oo markaas waana ilo xog ogaal ah oo la sheegay kulankaasi in la filayo in toddobaadkan gudihiisa Turkiga lagu qabto hadaba waxaana qorshuhu yahay uranisku in sare markaas loo qaaday waxaana suurtagal ay tahay in loolanka adag markaas Turkiga iyo Mareykanku ka dhaxin kara saameyn xooggan ku yeelan kara guud ahaan dunida iyadoo markaas hubka nuclearka ee labada dhinac ay soo saaraan waqtigan u muuqato in la kala iibgeynayo sidii markaas midba midka kala duulaanka ugu geysan lahaa hadii Trump iyo waliba sidoo kale Recep Tayyip Erdogan u muuqato waqtan in xiisada colaadeed ee markaas geeska gobolka ee si adag iyaguna dhankooda ugu dalaacdo waxa markaas la warinayaa qorshaha ugu muhiimsan ee waqtigan Trump uu damacsan uu yahay in guud ahaan awood military u adeegsan karo si kastaba ha ahaatee qorshaha ugu adag ee waqtigan la tilmaamaya ayaana la xusaya in dalka Turkiga isagana dhankiisa qaban qaabo loolan waliba xoogan ugu jira si walow ay markaas ugu guuleysan lahaayeen qorshe kasta ugu iman karo reer galbeedka ama Mareykanka waqtigan oo isagana si weyn ugu foogan sidii awoodaha oo dhani ee markaas gabiyaanba loolankeeda ama cirka isugu shisheereeri lahayd kuna tilmaamay qorshe adag oo waqtigan waliba inuu qaadi doono talaabo hadii wada hadaladan labada mas'uul ay ku balansan yihiin ama markaas lagu madalsiiyay in ay markaas wax natiijo aysan ka soo bixin qorshe ayaa la filaya in markaas laba dhinac qaadan waa intaas wararka caalamka iyo Soomaalida kala socotaan channelkeena Shariif Show waad ku maasantahay dhamaadka dad la soo gaartay kamid noqo saaxiibada si joogto wararkeena halkan oo la socda ma sanadin